gudoomiyaha xisbiga u ciidaya danjiraha midowga Yurub kala hadlay in maamulka Puntland ay xasilooni darro ka wadaan deegaano dhawaantan ay ku dagaalameen ciidamada Somaliland iyo Puntland. Haddaba war arrinka ku aadan waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Xasan Maal Nidar. Engineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga macaaridka UCID oo maanta qaar kamida warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in maamul goboleedka Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay wadaan qorshayaal nabadda iyo ammaanka ka dhana isla markaasina ay ka horinayaan deegaanka Dukaraq ee gobolka Sool oo dhawaan gacan ku haynta deegaankaasi ay la wareegeen ciidamada Somaliland aanu colaadaasi ka dhacday deegaankaasi kala hadlay danjiraha midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Frank Lorenzo ambassadorkii European kan la kulanay waxaanu kala hadalnay xaaladda dalku marayo hadda inay doorashadii galay nabadgelyo ku galay alxamdulillah waxaan uga sheekeynay arrinta ka dhacday Tukaraq arrinta ka dhacday waan ku xunaynay dawladda dadku u sharxin oo hadii dawladdu ummadda u sheegto caalamka u sheegto asxaabta u sheegto sababta ciidamadeedu u tageen deegaankeena Soolka Turka halkaas waxay noqotay meel kow ay maamulka Garowe oo ka samaystay checkpoint oo dadka baadkiga caadi jiray oo cashuur ku sheego inta wakti fogaato waxa la damca halka in la keeno ciidamada ay u bixiyeen waa ciidamada federaalka oo ka kooban shakhsiyaad reer Soomaaliland oo laga qorto meelahaas iyo beelaha dega Garowe Boosaaso oo halka la inoogu sheego la yiraahdo waxa weeye waa ciidamadii federaalka Somali government oo xuduudda inoo dhaxaysa Soomaaliya inta soo durugto oo halka la inoo keeno marka dhul fidsi ayaa halka ka muuqatay marka labada arrimood bay ahayd waddanka sana xaq buu leeyahay inuu xuduudihiisa u tago anigu ma ogin in xuduudihii isticmaalka uu sameeyay in mid kasta ba isticmaal sameeyay midna ma sameyn malaa'ikii in la baabiyay anigu ma ogin arintana waxa weeye arintii Soomaali hore ugu hungooday labada jeer dagaalka ku galnay Ethiopia inuu Kenya jabhada ku furnay aan Soomaali wax afka Soomaali ku hadla meel isku keeno maantana inay maamulka Garowe yiraahaan wixii abtirsiimo hartiyaan meel isku keenina waxaan aragnaa taariikhiya aan socon karin farmaajo buugi wuxuu la soo baxay Maxamed Saad Bare qabyaaladii buu wadaa Soomaaliya halka wax dhiga qabyaalad bawey wuxuu ku bilaabay weerar ku qaaday siyaasiyiintii xildhibaanadii oo ku qaaday ay taasoo tusisa in argosada Soomaaliya markii la dagaalamay Maxamed Saad Bare lama dagaalamin maamul Soomaaliyeed oo cid kasta ku jirta la dagaalamay oo lagu dalamay xukun xumo qabiil lama dagaalamin hadduu isagu leeyahay adeerkay baa la dagaalamay reer baa ku disheen waxaanu sheegaynaa in hadda halkii adeerkii laga saaray isna uu joogay inaanu joogin meel kale maanta fidmada ka socota Soomaaliya iyo Somaliland reer Garowe iyo Somaliland ninka dhigay waxa weeye waa farmaajo aan waaysan sidoo kale gudoomiyaha xisbiga macaaridka UCID Engineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in maamulka Puntland uu kala qaybiyay bulshada ku dhaqan gobolka Mudug waxaanu xusay inaanay suurtagal marnaba noqonayn inuu kala qaybiyo Somaliland reer Garowena way waruntoodo mar haddii ku guuleysay inay Soomaaliya qaybiyaan oo ay ka dhigaan dawlad goboleeyaal qabaa'il ku fadhiya oo ay qaybiyeen haddana gaalkacayo dadkii walaalaha isdhalay ay gaalkacaya laba maamul baan u sameeyay inay u soo jeesaan Somaliland oo isna iyadana qaybiyana waa waqtigaasi inaga siinay laakiin waxa leenahay tan idin suurtagal mayso kulanka dhex maray gudoomiyaha xisbiga macaaridka UCID Engineer Faysal Cali Waraabe iyo danjire Frank Lorenzo ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ay ka yeeshaan xaaladda deegaanka Tukaraq oo hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada Somaliland Xasan Maal Nidar telefishinka RTN magaalada Hargeysa.